أخي كمثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء. halkan aan ku suganahay waa deegaanka Kaneecaale ee galbeedka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. deegaankan ayaa deegaan muhiim ah waxaana ku nool qoysas aad u fara badan waxaana maanta si gaar ah u soo gaarnay dugsi quraan ee ku yaala halkan isla markaana burbur aad u xoogan ka muuqda geed hoostiisa oo qoraca ayaa ardayda quraanka ku baranayeen macallimiintii iyo waalidiinta deegaankan ayaa waayay qarash ee mar kale ku dayactirtaan maadaama quraci uu ka muuqdo burbur aad u xoogan ilmaha ayaa halis ugu jira in uu ku soo dumo quracan hoostiisa oo quraanka ay ku bartaan dadka muslimiinta ah oo dalkii dibadda intaba ku nool waxaan ka codsanaynaa dugsigan soo yaalo waad u jeedin maalintii waa qorax hadda jibal jilaala lagu jira waa qorax roobkana hadda kitaabaha iyo looxdi qaar rooba qaaday dadka tuulada joogana dad iska danyar ah daruufta ka dhigtay maahayna ayuko hadda kama aha waxaan ka codsanaynaa marka dadka muslimiinta ah oo dibadaha iyo jaaliyadaha ku nool inay naga caawiyaan oo dugsigan ay si fiican nooga dhisaan waxay noo heli karaan ay nooga dhisaan qoraxda hadana hayto waa baljiilaal oo hadda oona dadka haaye aayad ilaahayna waxay ahayd lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in adduunku waxaad ku hormarsitiin aad leedihiin waxaan ka rabnaa marka ummadaha muslimiinta oo adduunku ku nool oo daafacay dalka ba joogo inay dugsigan ugu kaalmeeyaan oo noo dhisaan saasan ka codsanaynaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمبركayga waa furushana لحدن سدح سدح تضباطن إيشانوا وحال لحدن سدح سدح تضباطن إيشانوا نمبركayga walaal waxaad awoodid ugu dir lambarka shaashada kaaga muuqanaya Abdinuur Cismaan Adan Carays idaacadii telefishinka caalamiga asal Cable TV deegaanka Kaneecaale ee gobolka Hiiraan.